dabcan xeer hoosaad leedihiin golaha shacabka maxaad yeelaysaa haddii lagugu qaado qodobka 10aad ee xeer hoosaadka wixii shalay ka dhacay baarlamaanka iyadoo la cuskanayo xeer hoosaadka baarlamaanka anigu waan ogolahay xeer hoosaadka waan ku dhisanahay laakiin waxaan qabaa Frimbi iyo Sacbis iyo Misma xildhibaan garaacay xeer hoosaad ma qabanayo oo wax ka mid ah waxyaabaha la ogol yahay waxyaabaha aan la ogolaan ka mid ma aha horta marka ugu horeysa shacabka ku nool gobolka Banaadir in xuquuqdooda asaasiga ah ay helaan oo muhiim laakiin shacabka in la khaldo oo la siyaasadeeyo oo xuquuqdooda la siyaasadeeyo ma aha waxaa ka horeeya gobolka Banaadir in kuraas la siiyo shacabka ku nool gobolka Banaadir in ay doortaan gudoomiyaasha degmooyinka ay doortaan maayarka oo maayarka maalin walba loo soo magacaabaya iyo gudoomiyaha gobolka maalin walba loo soo magacaabayo laga joojiyo kadib ay Muqdisho dastuurka soo qabo in Muqdisho maqaamkeeda lagu soo saaro dastuurka dadka waxaa markaa isaga dhex khaldan aqal sare inay Muqdisho hesho in Muqdisho inay hesho maqaam waa laba arrin oo kala duwan Muqdisho waxay ka mid tahay 18 gobol ee Soomaaliya xaqna waxay u leedahay sidoo qabo qodobka 72 ee dastuurka waxa uu leeyahay aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay 54 waxaan lagu saleynayaa 18 gobol oo sal u ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka kooban tahay gobolka Banaadir hadda adduunka markuu system federaal qaato waxaa hadda isku dhex jira caasimadii iyo gobolkii iyo inay caasimad ahaanayso Banaadir iyo inay gobol ahaanayso iyo inay caasimadii gobol isku jirta ay ahaanayso in dastuurka lagu qeexayo marka hore markaas waxaa ka soo baxaya maxay noqon kartaa nooca ay qaadanayso laakiin waxaa yara moodaa in laga shaqeynayo in lagu kambeyn gareeyo iyadoo 3 bilood ka dhiman tahay xilligii doorashada ka dhaxgalay xilligii doorashada iyadoo 3 bilood ka dhiman tahay way 4 sano looga hadli waayay dastuurka lagu soo qori waayay 4 sano 3 sano ugu dambeysay Muqdisho maqaamkeeda meel loo saari waayay kadibna mataladeeda meel loo saari waayay ayaa loo baahan arrin siyaasadeed weeye waxay u baahan tahay waliba dadka inay fahmaan u baahan oo hadda la soo qoray in Muqdisho aqal sare la sii ah waxa u baahan tahay dastuurka qodobka 72 in la jibiyo oo tiro dheeri ah lagu daro qodobka u soo laaban doona laakiin adiga mowqifkaagii waxba kama bedelin soo maahan wixii maanta ka dhacay Muqdisho aniga horta wax Muqdisho maanta ka dhacay waxaan u arkaan kuu sheegayaa Muqdisho maanta waxay ka dhacay waxay ahayd waxaan qurux badneen waxaan u qurux badneen saad og tahayba xilli corona lagu jiraa xilli diyaaradaha localka ay xiran yihiin baa lagu jiraa xilli masaajidada aan lagu tukan karin ayaa lagu jiraa xilli magaalada Badow ay tahay oo dadka ganacsatada ay kulli ay xiran yihiin baa lagu jiraa xilli jaamacadaha iskuulada ay xiran yihiin baa lagu jiraa iyadoo jaamacadaha iskuulada ay xiran yihiin iyadoo masaajidada aan lagu tukanaynin iyadoo corona la iska ilaalinayo in dad shacab intaas la eg la soo saaro waxay khatar gelinaysaa dadka caafimaadkooda in halis la geliyo marka nolosha dadka ayaa ka muhiimsan kuraas marka waxaan qabaa in dadkaas in caafimaadkoodii iyagoo looga faa'iideysanayo siyaasad in khatar lagu geliyo sidii aad shalay u wajahdeen hadal jeedintii madaxweynaha adiga iyo xildhibaano kale ma weyseen si ka habboon oo aad dareenkiina ku cabiri karteen waan weynay horta dareenka markaad tahay xildhibaan qaran aad tahay dareenka siyaabo badan ku cabiraysaa golayaasha annaga wax badan baan kaga hadalnay xaaladda waddanka uu marayo duruufaha waddanku uu taagan yahay qallafsan xaaladda siyaasadeed xaaladda amni xaaladda nololeed xaaladda gobolka Banaadir shacabka cunaqabateynta saaran ee gabdhaha waddooyinka u umulaya cunaqabateedada la saaray maamulgoboleedyada qaarkood duruufaha siyaasadeed waddanka ka jira in badan oo baarlamaanka la geeyay laga dooday waa la dhageysan waayay madaxweynaha marka annaga waxaan rabnay maadaama khudbadii ugu dambeysay ay tahay baarlamaanka muddaxileedkiisa uu dhamaanayo ayaan waxaan u baahneen inuu dareenka anaga dhageysto ama khudbadiisa uu ku soo daro xaaladda dalka uu marayo madaxweynaha markuu ka baaqsaday markay xildhibaanada qaarkood la hadleen ee mudane madaxweyne arrimaha waddanka uu ka taagan yahay inaan ka hadashaan rabnaa ayuu halkaas ka sii watay taas ayaana keentay xildhibaan inay dareenkooda cabiraan waxaa la sheegay inaad ahaydeen 4 xildhibaan oo golaha ku jiray kuwaasi oo sameeyay buuq iyo sawaxankii shalay ka dhacay furitaanka la fadhiga 7 ee baarlamaanka aqlabiyadda baarlamaanka maxaad u xurmeyn weyseen xildhibaan xasan horta hadda 4 xildhibaan ahaan 4 xildhibaan horta buuq ma sameyn karto meesha waxaa fadhisay 200 iyo xogaa xildhibaan baa fadhisay 4 xildhibaan hadda buuq sameyn karaan way sameyn lahaayeen xildhibaano badan aad u tir badan baa xildhibaanadii TV-gan waa daawan kartaa video uu duwan yahay iyadoo waliba saxaafadda laga jaray haddii 4 xildhibaan ahay maxaa saxaafadda looga gooyay markuu hadalka bilowday xildhibaanada qaarkood waxay qaadayeen Soomaali soo way qaadayeen qaar miisaska garaaceen way buuqayeen qaar firimbiyaal bay yeerinayeen way kala duwanaayeen dhowrka qof waxaa laga soo qaatay marka laga yaabaa inta ugu cod dheereed baa laga soo qaataa laga yaabaa laakiin geeska gees
xilwaanadu way dhawaaqeen wayna buuqayeen muddo hal saac ka badanna madaxweynaha hadalkiisu waa kisnaa idaacadaha dhan waa la gooyay Universal TV ee kamid tahay ma tawin karin wuu xirna waa laga xiray TV oo dhan wali wariyaasha marka dambe kaamirooyinka laga qaatay waxa la ma tawin kartaan marka waxa meesha ka dhacay waxa la soo gudbiyay aad u kala duwan inta moobilada lagu duubay ayaa hesheen way marka adiga filim bayaad yeernaysay waxa la maqlay gudoomiyaha baarlamaanka oo ku dhahayo George Xildhibaan Xasan Yare filimbiga maxaa ku kalifay inaad sidaas aniga kaligay filimbi ma yeerinayno horta filimbigu xilwaano badan baa filimbiyaal haystay qaar miisas bay garaacayeen qaar Soomaali soo soo qaadayeen qaarba nooc bay ahaayeen laakiin waxa la yaabaa gudoomiyaha markaasi inaan taagnaa ama inuu indhihiga asaga qabteen markaas ku soo dhaceen baa laga yaabaa magaciisa saas u sheegay laakiin aniga kaligay ma ahayn dadka dareenkooda muujinaya xilwaan aad u badan oo labada gol ah oo ka kala yimid dhammaan dowlad goboleedyada Puntland, Jubaland, South West, Galmudug ayaa dareenkooda muujinayay marka wax aniga gaar ah ma ahayn way madaxweynaha Soomaaliya waa madaxii ugu sareeyay ee dalka dad badan ayaa aaminsan in dawladdu ay wax badan qabatay isaguna uu ka sheegay shalay furitaanka la fadhiga ee toddobaad maxay tahay waxaad u arki laadahay dadaalka iyo guulaha inta leeg ee dawladdu gaartay ee aad u dhaleyshan tahay hogaaminta madaxweynaha Soomaaliya waa su'aal aad muhiim u ah aan rajaynayo waqti yar in ay siisan kaga jawaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku imaaday nationalism qodobka ugu horeeya wadaniyad buu ku imaaday oo anti Ethiopia la socota markaan dooranayna waxaan ku dooranay nationalism oo Soomaaliya wadaniyad baa lagu doortay wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee muwaadin Soomaaliyeed intuu jeebeeyay Ethiopia u dhiiba urur wadani oo Soomaaliya aan argagixisay ku tilmaama waxaan ku dooranay wax ka duwan buu la imaaday wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya 4 dekedood Ethiopia u saxiixa oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia intuu imaaday siiyay waxa admeen Xasan Wali asaga sheegay 4 dekedood in Ethiopia maalgashanayso oo ay ka shaqeynayso way duuban tahayba waa madaxweynihii ugu horeeyay oo u adeegsaday local election doorasho ka dhacaysa wadankiisa gudihiisa madaxweynihii ugu horeeyay oo u adeegsaday beedhow wax ka dhac waa la socotaa oo xasuuq ka dhac waa la socotaa waa madaxweynihii u adeegsaday Kismaayo wixii in laga sameeyay rabay waa la socotaa way qoranta way duuban tahay in afgambi inuu ka dhacal rabay ciidamada shisheeye loo isticmaalay dhuusamare wixii ka dhacay madaxweynuhu u adeegay awood military u adeegsada dhuusamareeb ee hal sunna wal jamaa waa la socotaa waa madaxweynihii aan ka hadlin diyaaradii ku soo dhacday aan lagu riday baan rabaa magaalada Bardaale ee Amazon ay sheegeen in iyaga inaan shuqul ku lahayn ilaa hadda madaxweynuhu uu soo qaadin waa madaxweynihii aan ka hadlin xasuuqa ka dhacay shabeellada dhexe waa madaxweynihii 4 sano uu joogay hataa khudbadiisa aan ku soo qaadin badda oo 4 jeer dib loo dhigay aan soo qaadin waa madaxweynihii aan dhameystirin dastuurka waa madaxweynihii aan dhameystirin hay'adaha garsoorka aan soo dhisin waa madaxweynihii ku laayay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cashukuuri dadkii si loo la socota waa madaxweynihii wixii loogu talagalay wadanka waa madaxweynaha waa astaanta midnimada qaran madaxweynaha waa isku hayaha dowladda federaalka ah waa la socota Soomaaliland lama hayo wasaare Abiy Igeebu yiri waa la socota Puntland ilaa hadda Dani Moon Imaan Xamar Xasan Ibrahim madaxweyne yahay Jubaland xiriir ma laha ilaa hadda shirkii amniga uu dhici lahayaa wax allaal wixii loogu talagalay astaanta qaranka dowladnimo madaxweynaha inuu qabto uu ku fashilmay sababtaas ku mucaarad inta aad tirisay inay yihiin xumaanta uu leeyahay inta wanaagii uu sameeyay ma noo tirin kartaa waxa la sheegay waa laba qodob wuxuu madaxweynaha uu qabtay qodob kale ku daraya waliba uu ka gaabiyo aad inaan u sheego u baahan 4 sano dawladdan ay joogtay degmada Janaale mooyaane hal degmo goor shabaab laga xoreeyay malaha shabaabku way nastaan wax dagaal laguma qaado magaalada Muqdisho canshuur bay ka qaataan Soomaaliya canshuur ka qaata waa ka warhaysaa wax dagaal ma galaan dagaal laguma qaado 4 sano magaalada Janaale kaliya ayaa laga xoreeyay wax degmo laga xoreeyay magaaladaas kaliya ay deegaan dhowr gobol ka tirsan waa tuulooyin wax laga hadlay degmo ka hadlaya degmo la sheegi kara oo maanta xur ah ee ka xoreeyaan 4 sano uu joogo degmadaasi Janaale la dhaho waxa ku soo haray laba arrin baa la sheegay kaliya deen cafiska xukuumadda ka shaqeysay iyo mishaar baan bixiyaa labadaas baan haynaa wax kale oo aan hayo ilaaha ugu wareemi jirto waxa la sheegay in dawladdu ay sidoo kale soo celisay qabkii iyo awoodii dawladnimada Soomaaliya isba kuma muuqato arinta aniga waxaan qabaa dawladdan inay godku ku riday qabkii ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah waa dawladdii ugu horeysay ummadda Soomaaliyeed dhibta waana dawladdii ugu horeysay ciidamo shisheeye oo nan Amazon u adeegsata muwaadiniinta localka ah waana dawladdii ugu horeysay oo qabateen saarta shacabkeeda oo diyaaradaha ka xanibta oo walaal ku dhalaan marka laba qodob kaliya inay dawladdan qabatada aaminsantaa adigu mid waa waajib saaranba waxa weeye mishaarada inay bixiso si la sheegay mishaarada bixisaa leeyahay oo waajib saaran waxa hadda amaan uma laha mid kale ma la leeyahay mase way bixiso adaa markaati ka mishaaraadka aniga intaan ka warhayo way bixisay waa maasanta qodob kale muxuu yahay qodob kale qodobka deen cafinta ilaa hadda natiijadiisa aan la haynin oo meel fiican ay soo gaarsiiyeen iyadoo ku amaanan yihiin amniga caasimadda
sida muuqata isbeddel ayaa ka jira muddooyinka u dambeeyey xildhibaan xasan miyaanay kuu muuqan arrintaas magaalada muqdisho gobolka banaadir intuu madaxweyne farmaajo joogay xasuuq ugu badnaa magaaladu ka dhacay waay 14 October waxay dhacay waad ogtahay waa wax ugu weyn xamar ka dhacay way noqotay 14 October waa la socota naasaha bilood wax ka dhacay waa la socota baarlamaanka aan ku shirin wax ka dhacay waa la socota maalmo bahoobiye in lagu garaaco xalane bishan aan ku jirnay inta ku dhacaysa hooyaal waa la socotaa waa la socotaa in madaxda al-shabaab ay ku sugan yihiin gobolka banaadir waxba aan laga qabanin waxaan qabaa anigu in amniga dowladda federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gabi ahaanba ku fashilantay way arrinta matalaadda caasimadda iyo maqaamkaba dadka u taallo adigaa ka mida xildhibaan xasan oo labada aqal ee baarlamaanka madaxweynuhu codsi ayuu idiin jeediyey ee maahan wax awooddiisa ku qoranay asagoo gacantiisa uu wax uga qaban karo haddii cidi tahay in lagu eedo arrintaasi wax ka qabashada la'aanteeda sow adigu qayb ka noqon maysid aniga horta dalka horta dal burbur ka soo kabtay weeyaan muqdisho ma aha sida cadaado kale iyo kismaayo kale iyo dhuusamareeb iyo garowo kale ma aha muqdisho waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed waana gobolkii banaadir ku taala waxaana ku nool shacab aad u tira badan oo malaayiin ah xaq waxay u leeyihiin inay isdoortaan lana doorto ana waxaan qabaa marka ugu horeysa si ummadan xuquuqdooda u helaan marka ugu horeysa horta in loo sameeyo maqaamka uu yahay horta inay isdoortaan maayarka loo magacaabay laga joojiyo yaa ha u sameeyaan leedahay xildhibaan xasan soo adiga kamid maahay aniga ka mid ahay in hadda annaga waxaan rabnaa maqaamkeedii ayaa rabaa in la bedelo ana maqaamkeeda in wax laga qabtaan rabaa dadna waxay rabaa inay siyaasad sameeyaan kuraas hala siiyo ay dhahaan hadda muqdisho horta matalaad waa laba shay midna waa aqal sare midna waa golo shacab golo shacab hadda waxaa yaala magaalada muqdisho 7 kursi uu yaraan baa taala oo laga soo doortaa muqdisho sida galmudug iyo jubbaland iyo south west kuraas looga soo doorto waxaan rabnaa annaga gobolka muqdisho marka u horeysa xeer nidaamiya dowladda caasimadda u taalo matalaad in maqaamka laga hormariyo qabta adiga aniga matalaad in maqaamka laga hormariyaan rabaa way xuquuqda wadanka u heli karo saddex hadda xildhibaanada matala gobolka banaadir xildhibaanada matala ama qabaale ah u batnaadaan ha sheegtaan ama dadka malaayiinta kuma laha waan ku soo wada dadka malaayiinta ku leeyihiin xildhibaanadaasi muqdisho Soomaaliya ku nool Soomaaliya dhan baa matali karta waxaan matali karaa kuraas hadda meesha taala matali karta kuraas baa taala muqdisho lagu doortaa ayaa taala lagu doortaa matali kara kuraasta ani waxa igala muhiimsan muqdisho in maqaamkeeda oo caasimadda ah oo wax gudbi aan ka dhaxgalo waa qabiil gooni ah oo dad yar lagu doortaa ma ku soo wada kuraasteeda anaga waxaan rabnaa maqaamkeeda inay noqoto wadan federaal maadaama uu yahay maqaam sharaf leh ka sareeya maqaamyo badan oo badan is dooran karaan waxna dooran karaan cashuurtooda waxbarashadooda siyaasadooda hagitaankooda inay yeeshaan baan rabnaa ee 3 kursi iyo 2 kursi oo la siiyay wax micno u sameynayso ma laha waxay ilayso maadaama caasimadda ay ku taala meeshan in xuquuqdeeda asaasiga meel la saaran qabaanay way mustaqbalka doorashada dad badan walaal ka qaba doorashada sida ay noqon doonto guddiga doorashooyinkan waxay leeyihiin doorasho qof codaan qabanaynaa iyada oo sharciga lagu cadeeyay sida doorashadu ay noqonayso aragtidaadu maxay tahay horta doorasho qof iyo cod Soomaaliya ka dhacday aad buu fiicnaan lahayd dastuurkaana qaba Soomaaliya muwaadinka Soomaaliyeed waxna uu doorto lana doorto laakiin khiyaal iska dhaadhiciyo ma aha doorasho qof iyo cod 4 bilood ka hartay aniga waxay u egtahay sidoo sharciga qabo November sharciga hadda bil ka hor waa inuu jiraa leeyahay qodobka 13aad baarlamaanka waa in la soo doorto November ah 27 December baa la dhaariyay qof iyo cod ka hadda la sheegayo صح qof iyo cod ka hadda la sheegayo ilaa iyo wuxuu u baahan yahay dhowr qodob ayuu u baahan yahay in la sameeyo koow wuxuu u baahan yahay inaan kuu sheego amni waa loo baahan yahay horta way meesha dad waayo boqolaal kun baa rabaa in dareeto ay doorasho cod ay dhibato waxaa loo baahan yahay registration in la diiwaan geliyo loo baahan yahay dadka waxaa loo baahan yahay sharciga axsaabta waxaa loo baahan yahay xafiisyadii axsaabta inay ka furiyeen dowlad goboleedyadii waxaa loo baahan yahay guddiga doorashada madaxa bannaan in dowlad goboleedyada ka furiyeen xafiiskiisa waxaa loo baahan yahay wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada way doorashada cirka kama dhacayso dhulka ka dhacaysaa waxaa loo baahan yahay in guddiga doorashada laftiisa shaqaalihiisa ay diyaar yihiin waxaa loo baahan yahay dhaqaalihii doorashada lagu qaban lahaa intaasoo dhan guddiga madaxa bannaan ee doorashada gacan kuma hayo xalimeeri haddaa weydiisana technically diyaar baan hayo ku dhahaysaa laakiin wax ay hayso ilaahay abuuray oo hadda annaga xoogaal baan u nahay guddiga arrimaha gudaha iyo amniga federaalkan ku jira wax xalimeeri ay hayso oo ah ay capacity ah doorasho qof iyo cod ku qaban kartaa ma jirto laakiin waxaa la rabaa dheeraysi in masala laga dhex raadiyo in doorasho qof iyo cod dhixi karin cid walba ay ogtahay maanta duruufaha jira oo hadda aan ku sharaxay marka miyaan la qaban karin doorashada hadda lagu sheegay sharcigan in nidaamka liistada furan wax lagu doorto oo
kuraasta deegaanadii la geeyay dadka deegaanada ku nool ay doortaan hadda waan oo la kala qaado aniga hadda waan ku sheegay waxaan ku dhahay kuraasta hadii la kala qaado sharciga wuxuu leeyahay macnaha dowlad goboleedyada ayaa laga soo dooranaya qofkan loo codeynaya qofka loo codeynayay xisbiga loo codeynayay iyo deegaanka amnigiisa aan la haynin kuraasta taala haddaan la garanaynin xisbiga hadduu ka diiwaan gashaneen dadka ka codeynaya haddayna diiwaan gashaneen xildhibaan hadduu xafiis ugu furneen dhaqaalihii haddaan la haynin doorasho xaggee ka dhacaysaa sax marka waxaad qabtaa inaan doorasho dhicinin waxaan qabaa in doorasho qof iyo cod baa dhacaysa inaad iska tahay khiyaal iyo riwaayad inaad iska tahan qabaa oo ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay doorashada kale dhici karta in la sameeyo waa lagu qasbay xildhibaan xasan inay doorasho dhacdo marka adoo doorashada kale aad filays inay dhacdo maxay tahay fiiri doorasho qof iyo cod waxaa rabay madaxweyne xasan sheekh inuu qabto 2016 markii la gaaray uu arkay qof iyo cod inuu qaban karin wuu soo istaagay wuxuu yiri doorasho qof iyo cod ma dhici karto duruufo ku dhici karta diyaar ma aha waxaan u baahannahay dowlad goboleedyada dowladda federaalka saamilada siyaasadeed inuu soo imaadaan aan ka wadno doorashada kalena la aaday 51 gobolada la aaday marka waxa loo baahan yahay dowladda inay intay dhiiranaato madaxweynaha hogaaminayo doorasho qof iyo cod 3 bilood kadib ma dhici karto duruufaha taagane hoggaan geesinimo intuu yeesho inuu ummadda soo istaago oo dhax doorasho ma dhici karto doorasho kale dhici karto aan ka heshiino way